السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalaha sharafta iyo qiimaha leh waa faacil khayr iyo mar kale waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtaan oo fiicantiin ma sha Allah tabarakallah. soo dhawaada waa maaragtay arrimaheennii bulshada oon ka hadli jirnay mid ka mid aan maanta soo qaadanaynaa. waxaan ka hadli doonaa ilaahay idankiis waxaan ka hadli doonaa soomaalida turki ku waalata iyo turki iyo sida maaragtay haddiiba uga niyad jabeen ayaan ka hadli doonaa ilaahay idankiis. marka ii soo dhawaada ma sha Allah tabarakallah. waxaan idin leeyahay soomaaliyay ardada ilaahay qaybiyay, ardada dhulka ilaahay baa abuurtay, cirka ilaahay baa abuurtay, ardada ilaahay baa fidiyay, cirka ilaahay baa taagay. annaga qolo kastaba ilaahay qayb buu siiyey. qaybta ilaahayna siiyey waa ardu Soomaal, waa wadanka aan maaragtay Jabuuti ilaa maxaa tiraahday Gaarisa ilaa maxaa tiraahday ii sheeg dhinaca kale haddii la aado aan ii sheeg har maxaa la dhihi jiray Jigjiga iyo wixii adigu xaggaas gobolka maaragtay Itoobiya shanta Soomaaliya wadankii la dhihi jiray ayaa horta ilaahay qayb noo siiyey. haddaan magacaas dadka Soomaaliyeed haddaan nahay, ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay, kuwa hore iyo kuwa dhintaba ilaahay wadankaas ayuu na siiyey. waana lagu qabsaday. Itoobiya qayb baa Ingiriisku u gooyey, aan ii sheeg Kenya qayb baa u gooyey Ingiriis. balaayada Ingiriis maaragtay khayr beele maxaa tiraahday markay inta saas noo kala googooyin because waa qaab darradana waxaan lagu goynayo. markaasna la googooyhayana ogaada dad baa uun Soomaaliya ku hoos daaban oo gaalka wax la googooyhayo sida maarta oo la socdo. marka intii yartahay oo nool ku soo reebo Jabuuti gooniya loo gooyo oo maaragtay waata madax banaani gooniya la siiyey. maxaa soo haray inta yar oo kooban oo 7ka u eg qariirada seerta oo markii saas loo fiirsho lambar 7 lambar 7 u eg tahay qariirada markii saa u taaganta meel yar oo dabadahan uga dhagan ma fahamtay oo badda xeebteeda saa u saaran. inta yarta oo ilaahayna siiyey waxay ahayd inaan janno ka dhigano, inaan annaga naloo soo shaqo tago, in annaga naloo soo tahriibo. waxay ahayd in annaga naloo soo tahriibo ayay ahayd. waxay ahayd annagu inaan cayrta bixino oo wadamada faqriga ah ay maaragtay na soo aadaan. annagana maxaa tiraahday dadkanagu ay rich ay yihiin oo dadkanagu maaragtay dad wax baranaya oo loo shaqayhayo oo diinta ilaahay baranhaya, maadigii baranhaya ay yihiin, loona shaqaynhayo oon ayagu maaragtay sida gacmuhu maxaa tiraahday nooga cadcadaadeen saan u shaqaynayna inaysan naga caddaanino naloo shaqeeyo ayay ahayd. waxa weeye waa dadnimo xumadanada ilaahay weynaa waaxidka ardadaas oo na siiyey. waxay ahayd in la fakaro insha Allah bilkariim. kuwii fakarana Allah naga dhigo, raggii fakari lahaa oo saa kasoo dhigi lahaa wadankana ilaahay ha naga soo saaro. markii annagu marka taanadii aan gabnay oo annagu wadankanaga aan eber ka dhignay waan yaacnay adduunyada shanta qaaradood. marka nimcada ilaahayna siiyey aan fiiri weyna because ma rabno haddii ilaahay inta jannatu firdaws lacala ku geey aad tiraadid ma rabo hagee lagu geynayaa dee cadaab baa lagu geyn because jannadii waa diidda ma fahante. marka waayo janno iyo waxay kala jirta. marka wadankanagi markaan diidnay ilaahay shanta qaaradood nagu firdhiyey. marka ilaahay shanta qaaradood nagu firdhiyey waxa weeye dhib iyo dheef baa kala kulanay. dhibkuba ha badnaadeen waayo wadan aadan lahayn waa dareen ku joog. dhibaatada maxaa tiraahday aan qurbaha ka jirta waxa weeye waa dhibaato. saasay tahay haddana Soomaalida qaar badan waxay ku faanayaan wadan hebel ayaan jeclaa, turki baan jeclaa. haddeer turkiya Soomaalida sanawaadkii ugu dambeeyay turki goormaad barateen Soomaaliya 2021kii may 2011kii yes waxaan marayaa 10 sano ka hor ayaa madaxweynahoodu yimid isaga islaantiisa wadanka baaba badan ka jiro oo al-shabaab iyo balaayadii iyo wixii iyo maxkamadiin ay baabeen Itoobiyaanka cagta wadanka mariyeen maxaa tiraahday oo sidaa wadankii loogu tuntay ayay dhibaatadii iyo macluushii awgeed ayay soo booqdeen. markay soo booqdeen noogama badarino adduunyadii aba istiri turki wadankii idinka qaadano nagu soo tartantay ma fahante. inkastoo iyaguna ay noo baneeyeen. marka Soomaaliya goorma turki taqaaneen turki war turki dad diin loo aada mahal oo dad diin la kuma jiraan. dad yar oo wax yar oo diina suufiyaal aan diinta ilaahay aqoonin u badan yihiin. cilmaaniyiinta ku badan, bilaa diinta ku badan. maxaa tiraahday aan Yurub iyo Carab dhexdood ayay taagan yihiin.
maxaa marka annaga nooga shalay iyo daraad ah walaalayaalow ilaahayba ardana siiyey waan jeclaa bal ila dhegaysta bal gabadhan ila dhegaysta waxa ay ku hadlaydo rag badan ayay u qodbaynaysaahoo halkaas maarta say u calaacalayso dad badan baa dhegaysanaya bal dhegaysta soomaalidu si iskula quman yihiin aan idin sheegayaa shaqsi iga jeclaa turki haba yarata ma jirto waxa weeyaan rajo wanaagsan ayaa iga muuqatay turki macnaha jacaylka aan u qabay aawadii anoo dhinaca islaamkana kaga dabaqaya falilahi alxamdu walimina anoo dhinaca islaamka kaga dabaqaya kute islaamnimada aan turki u aadaha gay joogtaa dumarkoodoo wada qaaqaawan yihiin islaamnimada aan turki maanta ay haysto dhinaca islaamnimada kute sii dhigay laakiin maanta waxaan taaganahay saydkii aan taagnaa tiisa kale aan taaganahay mu'minka god laba jeer lagama wada qaniino aniga waxaan dadkii la qabtay baan ka mid ahaa wallaahi alcadiim inaanan arag way jirtaa waa maqlay maxay ahayd liibiya iyo maxay ahayd saxaraha dad baa dad garaacay oo kurtuntay waxaa waa maqlay laakiin xishmad darrada dowladdan oo inta la arkay la eg oo quwadda la arkay la eg leh baan booliiskeedii see laguu xushmaynaya adiga haddaada dhexdaada isxushmayna see laguu xushmaynayaa markaad adigu isxushmaydid oo adigu isqiimaydid tusaala idin siinayaa haddii caruurtaada aad qiimaydid ood ilmahaaga aad maaragta u naxariisatid ood ilmahaaga aad tiraada le hebel baa maasha allah oo aad qiimaydid dariskuna waa qiimayn macallinku wuu qiimayn maxaad tiraahday mujtamacu wuu qiimayn laakiin ilmahaaga haddaad bahadishid oo aad tiraada waa inkaar qabe waa mid maaragta dariishada ka soo dhacay waa mid maaragta cirka laga soo riday waa mid dhibay waa mid xataa cunugaaga dhibaato kastoo kugu haayo markaad qiimaydid oo ammaanatid oo saa u salsalaaxatid waddanka iyo dalka iyo dadka aad joogtay iyo dariskuna way qiimahayeen laakiin markaa saa u hiiftid hadda waa ilmahaaga waa tusaalaha ugu yar ma ay qiimahayeen maca daalike waddan dhan oon isqiimayhaynin oon madaxdiisa isqiimayhaynin waad u jeedin haddeertan madaxdii ugu sarreeya saa isku haysata waddanka waxaa lagu leeyahay ganacsatadii xitaa nin la arkaa businesskiisi dib u dhigta wuxuu isleeyahay ama xabadda isku dhacdaa waa waddan wax yar haddii la murmo xabad baaba laisku qaadan qiimaha aad leedahay xayta marka ma dad kalaa ku qiimaynhaya maxaa lagaa qiimayn qiime ma lihidin soomaaliya meel kasta tagtan waddankiina haddaadna adinku isqiimaynin dhexdiina waddan kalaan qiimaynaha oon aan lacagta kula cararaya no way cid idin qiimaynaysa ma jirto okay abaayadan sii dhegaysanaynaa oo wax akhristay oo jaamacada ka soo baxay baacadownimada iyo anshaxumada because idma rabaan maxaanaha ay waxa leh weligay inaanan ku fakerin bal eeg weligay kuma fakerin ku leedahay bal eeg weligay kuma fakerin ba ku leedahay waddankan ingiriiska aan joogno hadda waxa weeye dhexdooda iyo waddankooda markii la joogo waxaa la baray thank you ku dheh qofka albaabka hadduu xataa kaa qabto thank you waddada hadduu kuu baneeyo thank you maxad sorry excuse me iga raali noqo erayada maaragta waddanka lagu dhex maro isxushmayn laakiin waddan kale markay joogaan sheekh mustafa hadda ka hor ka hadlaya waana rune waddamo kale iyo afrika markay tagaan dadka way raraan say doonaan oo la dhaqmaan laakiin waddankooda markii la dhex joogo iyo dadkoodu because dadkooda iyo waddankooda ilaashan hayaan ma fahanta maxaad tiraahday taanki iyo maartay laakiin soomaali inaysa qiimo lahayn ay arkeen dad cawaan ah oo lacag la dhacdhacaya arkeen maxaa lagaa qiimaysanaa buudkaa lagula tumanaya because adinkaba iskula tunta maadaama adinku iskula tumataan ayaguna practice idinku samayhayeen ma qaldan turkida inta aan leekay weligay ma arag xere booliis indhahayo ma saaran dad muslimiin sheeganaya nooca u dhaqmaya muslimiin sheeganaya anagoo muslimiin sheeganayna anagoo isdilnaa anagoo masaajidda ka buuxina sootaan isdilno anagoo masaajidda ku jirno macallinka dugsiga sooto gabdhaha oo kufsan hayo sootay wiilashii quraanka soo wada dhameeyay gabdhaha ay kufsan hayaan sootay masaajidda ayagoo ku jira yaa dad muslimiin sheegan haya ku turkiyood maxaa u malaynaa muslim in yar ka yihiin qaar ah muslim bahayna weydiiya dadka jaamacadaha ka soo dhigta aniga walaalahay baa jaamacada uga baxay oo xilliga weliba ay wanaagsanayeen ardada soo qaadi hayeen maba waxay ku leeyihiin dhalinyaradooda maba aaminsaninba islaam diin maba lihi cilmaaniinay u badan yihiin waxay u badan yihiin dadkan la yidhahdo isheg ortotismi oo hamaaqan bilaa diinta ah islaamnimo kute asaa u dhaqma annagoo islaam sheeganayno masaajidda ka buuxna ayaan isdilnaa dhiigganagi xalaashanaa iskufsannaa qowma luud qurun qashin oo naga buuxa maxaa tiri xag jirnimo qofku hadduuba qof uu yahay dee dadka haddaad galti tahay oo aad dambiilo tahay waxaad doontidba ha lagu sameeyo laakiin adoo miskiina oo dalkii wax ku soo kordhinaya oo maxay ahaydee wax allaale wax aad isleedahay waa kaa khaldanyi jirin oo aan laguu digin in sidaa lagula dhaqmo rag iyo dumartoonna annaga waxaan qaadan karna ma aha
waxaan qaadan kada ma aha manihin dad bilaadimiira manihin dadka soomaalida ah ee intay arkaan dhibaatada intaa la-eg dad ku raaligelinaya dhibaatada bilaadimiirana wallahi bilaadimiir aan arkaya dadkii muslimiinta ay la xiray ee masaakiinta xoolahooda maqnaayeen intay mikrofoona soo qaateen waxa weeye iyagaa khaldano shuruucdii magaran dalka ayaanay u hogaansanayn waa soomaaliya dee sharciga bartade dee qaanuunkayna garanay waxaas waxay ma waxaasaan ehel iyo walaalo kuna laakiin dadkan shuruuc waa loo sameeyay shuruucdiina way haysteen laakiin turkidu ku xadgudbayeen baraakis ku sameynayaan turkida markaan akhriyay waxay ku dhaqmayaan daliilaheenana waxa hadayna isu sheegin oo qof walba daliishiisa safaarad inta loo hagoogto oo waxay loo bahaleeyo dawladeena inaan daba socono haday wax dadka wax tarayso laakiin dadka waa in la toosiyaa safaarada waa inaan toosinaa waa inaan khaladaadkeena u sheegnaa waa inaynan u nacamlayn khaladaadkooda waa inaynan dusha ka didin jaaliyad baa la isku dayaa in la sameeyo rag anigu aan garanayo oo culimo ah oo ilaa istanbul jooga oo intaan imid aan arkayay oo ka shaqaynaya jaaliyadda iyo khayrkeeda baa markii la shirayo dad yar baa shiraya war ummadda isu keena ummadda in cidna laga tegin cidna yaan laga tegin dhammaan ummadda dadkuna ma wada talin karaan dadku maaha inay wada taliyaan waa run lama wada qadacin karo soomaali ciidamo wada dad yar baa taliya waa sax laakiin at least dadkii madaxda intaa soo shaqaynayay weligiin waa inaan laga tegin waa ina wax la weydiiyaa dadkii wax soo qabanay mar walba waa in la isku dayaa in la isla dubo anu saasayda odhan lahaa dadkeena la haystowna oo aniga aan ka ahawna aan diyaargarowno sida uu sheegay sheekha isniinta maanta haddii hawshaasi bilaabmi weydo heedhadee waxa weeyaan nin walba adaa isyaqaan hawsheena waa inaan ku mitidnaa intaasaan idin odhan lahaa safaaradii meesha inoo joogtay ee magaceena sidatay ee ina matalaysay anigu umaan bogin haddaanay u boginna sababta koobaad waa shacabka sababta ayta waynu iska bedeli lahay beer horeynu isku tiirsanaan lahay beer horeynu jaariyad dhisan ka dhigi lahay oo aynu dawladdeena intaan la hadallo ama iyagu kuwan inta noguma caawisaan qof walba isagaa giraamkiisa waxaanu dalka u tarramo waxaanu yeelaa ma jirto dhibaato waxa weeye intaasaan idin maqashiinaya kow dhaha waxaan idin sheegayaa soomaaliyay haddaanan isqaymeen turki idin qaymeen ma turki maraykan idin qaymeen ma yurub idin qaymeen ma afrika idin qaymeen ma carab idin qaymeen ma asian idin qaymeen ma shanta qaaradoodna waan la soo tuftay walaalayaalow marka waxaba turki yaanan xagxagan waxa weeye qaladka annaga iskale turki inay xamar ku raaxaystaan oo dekadii aeroboortka ay haystaan isbitaal qaaliya ay ka furtaan oo isbitaal dhan oo ummadda ay iska lahayd inta farta laga saaro say doonaan qofka ugu yar $100 laga qaado yaa walaalayaal xaq ilaahay maahan kuwana horboodahaya oo dawladda noo ahna ayaa qaladka iskale waxay ahayd dad maartay dhaqaatiir ah oo dawladdu ay maxaa tiraahday aan Soomaaliyeed keento oo aqoon la way buuxan adduunka in ayagu ay ku shaqaystaan qalabkii waa easy maanta meel kasta qalabka laga qaadan karaa in dad Soomaaliyeed ku shaqaystaan isbitaaladaas aeroboortkii dekadii meel kasta maxay noo qabteen waayahay maxay noo qabteen waa kaas dadka nageena saasa loo baabeynaya maalinta waxa la leeyahay islaamnimo iyo wax meeshaan wax qof loo arkay la shilinkiisa ayuu ka fakarayaa marka waxa weeye wadankanaga aan jeclaano wadankanaga aan dhaqaal gashano wadankanaga nimanka siyaasiyiinta ah oo wadankanaga noo diiday inuu degana aan iska celino aan ku banaan baxno walaalayaal aan ku banaan baxno nimankaas meel kasta joogtaan Soomaaliya wadan kale inta eeday lahaydeen madaxdanada aan eedayno wallahi billah ayaga dalkeena noo diiday inaan dalkeena inaan maal gashano kuwii maal gashadana waa kuwaasaasi waa fi xal wareysanaysay wiilashii qaar kamid ah way ku leeyihiin hantidanadii aan gelinay waan walwalaynaa ma seebe walwalba dadka loo geli karaaba walwal in dadka la gelsho oo ganacsatada la gelsho oo shacabka la gelsho xaraam calayk cidii gardaran waxa weeye xitaa dadka ma kala saari kartaan laba qofood marka isqabsato qolo saddexaad oo kala dhexdhexaadida waa inay leedahay qolada wax dhexdhexaadinaysana labada qaybood waa inay raalli ka yihiin ma garatay laakiin qolo dhinac u janjeerta oo qolo la safan ayaa waxay leeyihiin qola dhexdhexaadinayna bar hadda ilaahan kugu dhaarshay madaxweynihii hore waxa is haystay prime ministerkii cidda dadka dhexdhexaadin haya saddex nin oo la leeyahay waa dhexdhexaadinayaan saddexduba madaxweynihii hore la safayeen oo saaxiibadiis ay yihiin taas marka maxaq ilaahay baa aawo culumadii
aawo odayaashii aawe maxaa tirahdee aan kuwii maaragtay isku sheegi jiray ina mujtamaca ay afkooda ku hadlaan oo maaragtay dhihi jiray ra'yiga maxay ahayd maxaa tira dadweynaha oo shacabka ayaan afkooda ku hadalnaa meey aawo siyaasiyiintii waddanka ma waxaa la rabaa fiiri marka xabado isku dhacdo oo xabad laisku qaato oo lasbaabaasho oo dad dhintaan oo guryo jajabaan markaas ka bacda leeyahay war hala joojiyey war waan waanay waay hadda loo aamusanya waay hadda loo kicilaayo waay hadda laba qafood hadday isqabsato oo afka iyo waraaqa iyo waatana waraaq iyo hadal xumo markay timaado wixii ku xigaa waa gacan waa soomaaliya gacan fudeedkeed wiilal yaryaroo wada maaragtay wada maxaata ilaahay xaalkooda ogya ayaa hub loo wada dhiibo oo qabyaalad iyo qurun ka wada buuxo marka ma hadda dadka dejidaan oo waddankanaga noo dejidaan waddankeenaa nagu filan oo maal gasho karnaa oo cadaalad ka samaysaan waay dadkan shacabka ahow meel kastaad joogtaan waddan islaamid ha eedaynina eedeeya madaxdiina qabyaaladda inta iska daysaan ku bannaan baxa ninkii gardaran ku bannaan baxa soo baxa tuulooyinka ka bannaan baxa oo gobollada ka bannaan baxa oo caasimadaha ka bannaan baxa oo baadiyaha ka bannaan baxa oo meel kasta ku bannaan baxa meel kasta telefoon iyo kaamera taalle ku bannaan baxa ninkii gardaran oo ninka garka daran iska celiya oo iska qabta dagaal looma baahna iyo xabad afka waa in laga hadlo waxaa kale oo loo baahan yahay dadkii birri ka maalin soo ordi lahay haddii xabado dhacdo intaan xabadu dhicin waxaa jirta wax la yiraahdo maaragtay aan barafanti oo waa inay hor istaagtaa stop dagaal iyo idabdarraba inta saysan u imaanin waa inaad stop garaysan haddeertaan oo aad joojidaan meeyey aawe ninka la yidhaahdo aan wadaadkii hebel salaad iyo maxaadal sheekh cali wajiis iyo culummadii aawe maaragtay siyaasiyiinta ku dhadhowaa ilaahay maa ka cabsataan maa soo baxdaan maa la hadashaan nimanka siyaasiyiinta ah oo waddanka badbaadisaan ma marka xabad isku dhacdaa rabti inay shirar qabataan yaa wariyaa ilaahay laga cabsado waxba turkiyaanan eedaynay shacabow madaxdiina eedeeya dalka ilaahayna siista aan quruxsanno waddan nin kale oo quruxsado yaanan ku dhegdhegin yaanan ka daba ooyin hooy ilaahay laga cabsado anugu intaas ayaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin jazaaka allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu